السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بدتك الصوماليات صومالي قلبات أما صومالي ستيت داوانا يا ملك استد عالم كتشوكتم واحد السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وحوي دكتور سعيد حرير ديرية مشرحة مدحوينها إن درشة صوصعتها صومالي ستيت لبضة كون يلاتنك ملك استد عالم كتشوكتم واحد السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaka waxaan ka hadlayaa laba qodob oo aan u arkay inay yihiin muhiim dhismaha dawladnimada iyo horumarka Soomaali galbeed ama Somali state si aynu helo doorasho xor oo xalaal ah. qodobka hore waxa weeyaan horta waa in marka hore amniga la sugo. dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in waxa weeyaan amniga la sugo, in militant groups ama jabhadaha dhawaan la soo xareeyay hubka laga dhigo, in deegaanada Somali state oo dhan amnigoodu uu noqdo mid maxaan ku yiraahdaa waxa weeyaan runtii hana qaada oo ka taabagala halkaasi ama Somali state. waxaanu ka codsanaynaa in ciidamadii la oran jiray liu police madaxweynaha imika xidhan ama xabsiga ku jira in wax weeyaan ciidankaasi la kala diro, in la sameeyo ciidan Somali State National Police Force loo bixiyo oo dadka oo dhan matala. ciidan Somali State National Police Force leeyahay oo ummadda oo dhan matala in la sameeyo ayaanu codsanaynaa anigoo ku hadlaya magaca xisbiga midnimada Somali State, anigoo ku hadlaya xisbiga United Somali State Party ama xisbiga midnimada. waxaan leenahay waxa weeyaan waa in sida ugu dhaqsaha badan ciidankaasi lagu sameeyo dismantling oo loo kala dira. arinta kale aan doonayna inaanu ka hadalno waxa weeye arinta ku saabsan si loo helo doorasho xor oo xalaal ah waa in systemka iyo foundationka dawladnimada waxa weeyaan ay noqotaa mid dadka wadanka degan oo dhan ay ka qayb qaataan qaab dhismeedka dawladda, taasoo aan doonayno in dhammaan gobolada iyo degmooyinka oo dhan la isugu yeedho si dabeetana loo sameeyo dawlad la wada leeyahay oo isku tafatiran oo isku dhafan oo aan dhinac u jinjeerin oo maxaan ku yiraahdaa matali karta shacabka halkaasi in la helo. taas waxaan doonaynaa xukuumadda federaalka Ethiopia inay arrintaa kala shaqeyso stateka Somali state sidii loo heli lahaa doorasho xor oo xalaal ah. waa in la kala diraa waxa weeyaan dhammaan sistemadii iyo nidaamadii dhinaca ka raraa ee cabdi ilay sameeyay hadday noqoto institutionada heer gobol iyo heer deegaan iyo heer degmo dhammaan wax iyo hay'adaha amniga intaba waxaad moodaysaa inuu ahaa mid dhinac ka raran oo run ahaantiina oo ahaa. marka waxa weeyaan waa in shir la isugu yimaadaa guud baanu ku baaqaynaa oo lagaga tashada aayaha wadanka Somali state iyo sidii wax loo wada yeelan lahaa. qodobka kale aan ku baaqaynaa waxa weeye shirkaasi aanu ku xoojinaynaa waxa weeye in gobol waliba uu isagu ismaamulo ayaan doonaynaa Somali state hawdan reserve area uu ismaamulo. gobolada kale ee maxaan ku yiraahdaa southka iyo south centralka iyo northku ay ismaamulaan in la sameeyo governoratoria la sameeyo ayaanu soo jeedinaynaa. in maadaama oo dalku uu ka weyn yahay dalka Faransiiska in maxaan ku yiraahdaa loo sameeyo governoratoria iyo maayro gobol waliba oo miisaaniyadiisa iyo budgetkiisa dejiyo ayaanu soo jeedinaynaa within Somali state in laga helo maxaan ku yiraahdaa maamul daadejin devolution oo waxa weeyaan goboladu ay iyagu soo doortaan dadka matalaya, goboladu ay governor soo doortaan hawdan reserve area south centralka gobolada northka gobolada koonfurta inay soo doortaan governoratoria oo system confederation aan qaadano ayaanu haddaanu nahay xisbiga ku baaqaynaa midnimada Somali state. doorashadana waxaanu kaga qayb galaynaa inaanu doonayno inuu gobol waliba iskiisa isu maamulo resourcekiisa isagu maamulo.